aabba Soomaaliyeed ayaa waxa uu waraysi u siiyay telefishinka Somali News oo bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in wiilkiisa oo ku xiran wadanka Liibiya laga doonayo qiimo lacageed gaaraya $8,000 haddii lacagtaasi la bixin waayana wiilka uu dhalay nafta ay dhaafin doonaan kooxaha gacanta ku haysta. warbixinta warkani waxaa sii dheereynaya wariyaheena Xasan Maxamed Cali Kaahiye. aniga aabba Soomaaliyeed oo hadda dantiisa dan macnaha oo aad u liitaan ahay marka intii awood Ilaahay siiyay waxaan ka codsanayaa oo muslimiin ah inay anugaasi inaan meel ku wada noolaan anugeeyay inuu soo celiyo Allah uu diiday intii mudan Maxamed Mustafa Khadib Ali waa aabaha dhalay Saalax Mustafa Khadib Ali oo magafa uu ku haysto dalka Liibiya. waxa uu si muruga leh ugu sheekaynayaa xilligii aan babaxay wiilkan u dhalay iyo dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu ku jiray safarkii adkaa ee uu galay inuu gaaro dalka Liibiya. adiga dhalinyaro farbadan ay ahaayeen iskoolaad dhignay markii soonka la fur waxay dhaheen meel hebelan baloon soo burtulna baloon ku ciyaarina oo wala waa ka sii baxnaa dina waxay tageen qardan baloon ku leeyahay si aan markaas ay soo baraayeen sidaas sidii loo dhahayay boosaas la geeyay boosaas marka la geeyay si asig mar dambe uu sheegayo boosaas la sii qaado waxa la geeyay Yemen la geeyay Yemen wiilka warkiisa uu horiyay maxaa ku waday maxaa haystaa maxaa ku dad ay soo wadayeen marka wiilkii ma ka baxsan kartaa meesha isku macnaha ma ka baxsan karin wiil meesha wala Suudiya qasr weyn baan la geliyay qasrdaas aan ku dhaxtay wiilkii waa la sii qaado meeshii Suudaan hadana joognaa soo dhaadin subax baar iyo soo waxay ugu dambeysay macnaha hadda Liibiya joognaa oo $8,000 ah ayaa laga rabaa. aabe Mustafa Khadib Ali waxa uu sheegayaa in badbaadinta nolosha wiilkiisa ay u tahay mid muhiim ah dadaalna uu galay laakiin duruuftu ay u diiday inuu ka bixiyo dhaqaale gaaraya $8,000 oo ay ka doonayaan magafayaasha. ما يسميه جرين مرة مركي عقد جبلين وحاس أي بدين تلفون كابك الدنسي ما كليه وادي لنا ذيك العتكة. aabe Mustafa Khadib Ali ayaa horay waxa uu iibiyay beer uu ku lahaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ku iibiyay qarash gaarayay $1,800 oo wiilkiisa u diray. Solo si dice waa inta aad wiilta oo hallee wasiila beesayna wiilki marka dhaxalada Ilaahay bilaasku wax ma haysti marka umada Soomaaliyeed Maxamed waxaan ka codsanayaa in gacan la iigsi wiilki. su'aasha isweydiinta mudanse waxa ay tahay aabahan miyuu awoodi karaa inuu bixiyo qarashaad ka badan $6,000 oo ay ku qansheegteen magafayaasha ku sugan dalka Liibiya. yuuse ka rajaynaya inay ka bixiyaan qarashkaasi. codsanayaa in wiilkaasi oo aragtidiisa saasad ku arkaysanaa in gacan la iigsi intii Ilaahay wax sii waxaan ka codsanayaa in anugaasi meeshaasi cariirigaas uu dhex jiro gaaji iyo dil iyo adduun waxay sifo in gacan la iigsi qaasatan dawladda Soomaaliya iyo intii mudan Maxamed ah. muuqaalo argagax leh oo ku aadan hanaanka ay ula dhaqmaan magafayaasha ku sugan dalka Liibiya wiilkii uu dhalay Mustafa Khadib Ali ee lagu magacaabo Saalax ayayna la wadaageen aabahan waana mid keentay in iminka saxaafadda uu la hadlo kaalmana uu weydiisto bulshada Soomaaliyeed. aniga aabba Soomaaliyeed oo hadda dantiisa dan macnaha oo aad u liitaan ahay marka intii awood Ilaahay siiyay waxaan ka codsanayaa oo muslimiin ah inay anugaasi inaan